assalaamu calaykum. waxaad aragtay qof bulshada ka caana ka sheegan laga dhex yaqaano isla markaana caanimadiisa silsilya baar ku leedahay ficilada iyo weliba odhahaha afkiisa ka soo baxaya. baraha bulshada ama social media waa adeegay suura gelisay tiknoolajiyadda mintan jirta. waxa uu leeyahay laba dhinac oo kala ah mid tan iyo mid siloon. kolbana kaadu isticmaasha ayuunbaad maxsuul ka helaysaa. sida caamka ah way yartahay inta baraha bulshada dhinaciisa san u adeegsataa, laakiin badanaaba waxay dadku u adeegsadaan dhinaca siloon ee waqti lumiska ah. markaad dhex taagan tahay baraha bulshada ku kulanto waxaad arkaysaa in dhalintii dalka u soo kacaysay ay aad iyo aad ugu mashquulsan yihiin sidii ay dadka ugu dhex muuqan lahaayeen, balse aanay u kala aaba yeelayn maxaa kuu sharafa, maxay dadku kaa faa'iidayaan. balse boyntka adiga kuwa cad keliya uu yahay in muuqaagii magacaaga dadka laga dhex barto. haddaba waxaynu barnaamijkeennan kaga hadli doonnaa saameynaha kala duwan ee baraha bulshadu ku leeyahay dadka iyo welibana barobagandada. barnaamijkeenna maanta waxaan ku gorfayn doonnaa isbeddelka dhaqan ee aad iyo aadka inoogu faafaya 10kii sane u dambeeyey ee isgaadhsiintu horumartay. waxaynu taariikhdii sooyaalka islaamka ku haynaa inay cadaawad soo jireenay naga dhexaysay innagii kufaarta allah subxaanahu watacaala ku kufriyey, iyadoo aalaaba aynu jihaad la geli jirnay si aynu diinteenna u faafinno. dagaalkuna uu noqon jiray keliya mid birta layska aslo foolka fool ah, balse aanay jirin waagaas wax warbaahin ah maadaama ay tahay warbaahintu qayb ka mida hubabka caalamka ugu waaweyn oo la sheegaba inay soo gasho qaybta afraad. wixii ka dambeeyey qarnigii 19aad isbeddelkii horumarka dunida si ballaadhan ayuu u socday hadday noqoto dhanka tiknoolajiyadda casriyeynta hubka, taasi oo aabbihi hooyaba u noqotay in laga ilbaxo amaba laga guuro qaabkii hore laysu weerari jiray. ka hor inta aynaan sii dhexgelin barnaamijkeenna aanu isla eegno dadyowga kala duwan ee adduunka guudkiisa ku nool. xaddii intee leeg ayaa ka isticmaala social mediaha amaba baraha bulshada. waxaa lagu qiyaasaa sannadii 2017 in 2.46 bilyan dad ah oo ku kala nool dunida dacalladeeda ay isticmaalayeen baraha bulshada. sidoo kale waxaa la saadaaliyaa in sannadda 2020 ay noqon doonaan tirada dad ee isticmaasha baraha bulshada 3.1 bilyan guud ahaan adduunka korkiisa. sida barnaamijkeena ugu horreynba ka muuqataa waxaanu afaaf ama gogol xaadhasho ka dhigannay in adduun weynaha intan la eg ay bulshadii Soomaaliyeed ama dhallinyaradeenni ku mashquulsan tahay keliya inay raadinayaan caanimo ama inay dadka ka dhex muuqdaan. hase ahaatee ma xumo inaad noqotaa caan, balse waxaa warku ka joogaa maxaad ku noqon karaysaa caan iyadoo ay bulshadii Soomaaliyeed ay u fakarayso keliya dhanka khaldan. oo isla markii wiilka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed ay soo gasho baraha bulshada kaliya waxay damcaysaa sida ugu fudud inay ka fikirto ee ay ku noqon karaysaa caan lagu qaadaa dhigi karayo maalmaha indhaha dadka haysan karayso. kadib markay maskaxda cabbaar ka shaqaysiiso ay soo tuurayso isla markaaba kadibna isla qosli doonto iyadoo nafteeda kula mushaawaroonaysa allaylaha iminkaad isha ka riday oo nafteeda u sheegi doonta inay la timaado ficilo ama weedho aad iyo aad u anshaxun oo laga yaqiiqsoodo inay qof dumar afkeeda ka soo baxaan. ma og tahay marka inta aad soo istaagto bar ka mida baraha bulshada ku kulanto inta aad heestid istijabisid inay ka dhigan tahay goob fagaar oo dad aad iyo aad u tiro badan la isugu keenay, kadib qofkii wax garaday halkaa kugu arkaa oo markaaba niyadda iska weydiinayo talow qofkan maanu lahayn waalid akhlaaqda bara ama tarbiyadeeyey. ugu horreyn halkaa waxaad la gashay dhulka sumcaddaadii iyo akhlaaqdaadii ama shakhsiyaddii aad bulshada ku dhex lahayd. lambar 2 waxaad dhulka la gelaysaa ama aad halkaa ku baabi'isay sumcaddii iyo sharaftii uu waalidka uu ku dhex lahaa bulshada. balse xaqiiqadu taa way ka duwan tahay oo waxaynu ognahay in waalidkeennu yahay mid had iyo jeeraale heegan u ah barbaarinta ubadkiisa, iyadoo labada qaybood ee qoyska laga maamulo ay hawsha u kala qaybsan tahay. halka aabbuhu uu qaabilo nafaqada iyadoo weliba qudhiisu aanu ka tegin barbaarinta
balse ay kaalin aad iyo aad u mug weyn ku leedahay hooyo, iyadoo weliba hooyo welibaaba ay u tarbiyeyso ubadkeeda sida ugu wanaagsan. laakiinse ay tahay dhibta jirta in laynoo samaystay hub lagula dagaalamaya islaamka oo laynoo soo raacinayo dhanka isgaadhsiinta sida Instagram, Facebook, WhatsApp iyo weliba baraha kale ee bulshada ku kulanto, taasoo looga dhigayay gogol xaadh in laynaga dhaadhiciyo inay wax walba iska caadi yihiin, oo xitaa layna galansiiyey halkii ugu xumayd in layna gaadhsiiyo oo ay yidhaahdaan wiil iyo gabadh ajaanib kale ihi waxaanu nahay saaxiib, iyadoo aanay xataa waxba la kala xishoonayn, cawradooda kala qarsanayn. haddaba daawade waxaad dareemi kartaa saamaynta baacadda weyn ee uu baraha bulshadu ku hayo adduunka. waxa uu saamayn ku leeyahay caafimaadkaaga, dhaqankaaga iyo weliba habu-fikirkaaga. waxaa ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad darro ee uu sababo baraha bulshadu: hurdo la'aan iyo indho xanuun. sidoo kale waxa uu kugu sababi karaa stress amaba isku buuq. waa haddii aad isku mashquuliso doodaha iyo waxyaabaha bilaa micnaha ee laga dhex heli karo gudihiisa, iyo haddii aad isticmaasho saacado dhaadheer. waxa uu saameeyaa xasuustaada, oo waxay daraasadaha qaar sheegeen inuu baraha bulshadu yareeyo oo uu hoos u dhigo xasuusta maskaxda. waxa uu saameeyaa dhaqankaaga. sidee ayaa uu u saameeyaa? waxa xusid mudan in qofka 95% ay saamaynta ugu badani kaga timaado deegaanka ku hareeraysan, maadaama oo uu baraha bulshadu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee ku hareeraysan qofka. ma saamayn karaa dhaqankiisa? waxaan u malaynayaa inaad yaqiinsatay daawada jawaabta saxda ah. saamaynta ugu baahan ee uu baraha bulshadu ku leeyahay dadka waa in uu saameeyo hab-fikirkooda, oo waxa uu qofku maalintiiba ka dhex dheehan karaa baraha bulshada dhexdiisa kumanaan fikir oo kala jaad ah, kuwaasoo jahwareer ku keeni kara hab-fikirkiisa. haddii aynu intaas kaga imanno saamaynta kala duwan ee uu baraha bulshadu ku leeyahay nafaheenna, aynu isla eegno brobagandada, gaar ahaan brobagandada baraha bulshada. waxaynu aragnaa maalin kasta kumanaan qoraal, sawirro iyo muuqaallo kuwaasoo brobagando u badan. ka Soomaali ahaan waxaynu nahay dadyowga ugu badan ee isla dhex mushaaca muuqaallo aan nacfi lahayn oo keliya laga yaabo qof in uu iska soo duubay. laga yaabaa inuu qofkani lacag ka faa'iidayo daawashadaada daawade iyo sheergarayntaada, balse adigu ma isweydiisaa maxaad ka faa'iidaa qofkan daawade? waxaynu gabnay mas-uuliyaddiina saarnayd, waxaynu ilownay oo aynu ka marin habaabnay dhabbadii nolosha ee waaqica ahayd. waxaynu nolosheenni iyo cimrigeennii qiimaha badnaa ku bixinay waxaan nacfi noo lahayn if iyo aakhiraba. waxa wax aad looga xumaadaa in yar iyo weynba, ciroole iyo ciyaalba, madax iyo mijaba, wadaad iyo waranlaba aynu ku mashquulnay wax aan danteenna ahayn. tusaale ahaan waxaa dhowaan soo baxday kelmad si ba'an uga baahday amaba ugu dhex baahday baraha bulshada oo intaas oo brobagandaha laga sameeyey, oo xitaa aynu bida'aadantinimadeenii qadarin weynay. waxaanay kelmaddu ahayd ila meerayso Soomaaliyeed. haddii aynu ka soo noqon weyno booraanta dheer ee aynu ku sii dhacayno, xaqiiq waxaynu gaari doonaa heer ay bulshadu noqoto bilaa qiimo oo aynu ka marin habaabno dariiqa saxda ah. ugu dambayn waxaan ku soo gebagabaynayaa: ku bixi wakhtigaaga wax kasta oo kuu dan ah, kana dheerow daawade wax kasta oo wakhtigaaga lumin kara. dhalinyaro, ma ogtihiin inaynu nahay lafdhabartii waddanka, dhaxal sugaha jiilka hadda talada gacanta inoogu haya, loogana baahnaa inay noqdaan hormuudka horusocodka bulshada si loo gaadho horumar buuxa, balse aynaan noqon kuwii ka shaqayn lahaa sidii halkii laga yimid loogu noqon lahaa. si aynu taas uga dhabaynana waxaanu inooga baahan yahay in mid kastoo waxgarad ho inaga mida aanu walaalkiisa jidka khaldan qaaday wuxuu sheega kala daalin, ilaa inagu intaynu ku dhaannaa ummadii hore waa inaynu nahay kuwo wanaagga isfaro xumaantana iska reeba. barnaamijkeenna maantana halkaas ayuu inoogu eg yahay. wassalaamu calaykum.